aniga wafdigayga waxaan halkan u nabad aan kaga qayb qaadano jaaliyadda Soomaaliyeed iyo diblomaasiyiinteenu hogaaminaya safiirka Soomaaliya u jooga South Africa xafladda sanad guuradii 65 ee ka soo wareegtay maalintii xornimada Soomaaliyeed iyo furista safaaraddeena cusub ee Soomaaliyeed ee magaalada Pretoria waxay ahayd runtii xaflad aad loo soo agaasimay oo diblomaasiyiin badan ay ka soo qayb galeen waan ku faraxsanahay dadaalka uu muujiyeen safiirkeena iyo diblomaasiyiinta iyo qaasatan jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer South Africa oo runtii qayb weyn ka ahaa in gurigan maanta aan dhex taaganahay maanta furnay iibkiisa iyo ka qayb qaadashadiisa runtii waxay ahayd munaasabad aad u weyn oo annagoo 65 jirsanay iyo annagoo hadirtaan qayb weyn ka ah stage-ka caalamka dunida marka loo eego laba habeen ka hor waxaan joogay Dar es Salaam oo safaaraddeena dib loo furay dayactir weyn lagu sameeyay maanta waxaan joogaa Pretoria oo safaarad aad u weyn oo qurux badan aan ku leenahay maalmo dhowna waxaa jiri doona safaarado kale oo aan furi doono hadduu Allah wada leeyahay marka waxaan leenahay Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo insha Allah guulaha isdaba joogana waxaan rajaynaynaa inay sidoo ku sii socdaan oo guulo badan aan gaarno hadduu Allah wada leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto waxaan leeyahay hambalyo oo waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed especially jaalidaha Soomaaliyeed qurbaha jooga inay jaaliyadda reer South Africa ku daydaan oo meel walba looga baahan yahay in safaaradaheena iyo haday noqoto EB haday noqoto in dib loo furo loo dayactiro ay qayb weyn ka qaataan dawladda Soomaaliyeed aad u mahadsantihiin waxa ugu horeysa waxaan idin leeyahay hambalyo maalintan aad noogu weyn dhamaanteena oo ka soo wareegtay 65 guuradii maalintaasi aad noogu weyn oo idinkan maanta aad ka soo qayb gasheen waxaan jaaliyadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto daafaha dalkan gaar ahaan Southern Africa mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya maalintan aad noogu qiimaha badan kuwii u helay fursad maanta inay ka soo qayb galaan iyo kuwii aan u helinba waxaan leenahay insha Allah sanadada soo socdana waxaan rajaynaynaa inaad fursad u heshaan ina maalintaasi aad idinku weyn aad xustaan inta waxa ay sii dheer waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saad la socotaan maanta laba barnaamij aad noogu weyn ayaan qabanay xuska maalinta 1 Luulyo iyo saad arkaysaan furitaanka safaaradda cusub ee Soomaaliya ay ku yeelatay dalkan South Africa sidaas daraadeed waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo qof walba oo kaalin ka geystay furitaanka safaaraddan hadal iyo hoo intaba ka geystay si gaar ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii ka shaqeeyay safaaraddan oo intoodii badan maanta ay halka fadhiyaan